Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kula kulmay guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo ay dhawaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta. Qofta idinka leedinku doortay rag iyo dumar waxay tahay horta koow inaan aaminsanahay inaad leedihiin khibradda loogu talagalay si inaad hawshan daadihisaan. Labo inaad tihiin dad Soomaaliyeed oo reer Galmudug ay aqbalayaan wajiyadooda. Saddex sidaad sheegteen inaad tihiin dad hadda shaqadooda ay tahay inay wax hagaajiyaan oo iyagu halkan aan dan ka raadinayn. iyo tan ugu dambaysa idinka laftiinu inaad aaminsan tihiin shaqadani inay gobolkana muhiim u tahay dalkana muhiim u tahay idinka iyo annagana muhiim noo tahay kulliga. kulanku ay goobjoog ka hayeen wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, madaxa fulinta Galmudug iyo mas'uuliyiin kale ayaa looga hadlay qabsoomidda shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug, dardargelinta shaqada guddiga u taala iyo kamir dhalinta dadaalada la isugu keenayo dhammaan reer Galmudug si ay uga tashadaan ayaha dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay iyo diyaar garowga doorasho xor iyo xalaal ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddiga xasuusiyay shaqada adag ee loo igmaday inay qabtaan, waxa uuna faray in sida ugu habboon uguna dhaqsiyaha badan uguna daacadsan ay uga shaqeeyaan isu keenida bulshada si gogasha Dhuusamareeb taala ay uga soo baxaan natiijo farxad gelisa dhammaan shacabka reer Galmudug iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan aaminsanahay inaad ogtihiin sida aad maantaba wasaaradda arrimaha gudaha kala munaaqashooteen iyo dadka la kulanteen howlaha idin hor yaalla ahmiyadda ay leeyihiin iyo tiradooda intay leeg tahay. laakiin annaga maanta waajibaa naga dhacay. waajibka naga dhacay waxa uu yahay shaqadii annaga kaligeena la ku ogaa gacmaha la idin soo geliyay hadda. in la isu keeno dadka reer Galmudug dhammaantood loo fidiyo gogol ay isu yimaadaan ay ka wada hadlaan wax walba oo tabasho ay qabaan. laakiin gogoshu ay ahaato tii u gogol xaaraysay in gogol rasmi ah la sameeyo oo ah in dowlad la dhiso. dowlad loo wada dhan yahay, nidaam cadaalad ah ku dhisan, hadafkeedu uu yahay inay dadka reer Galmudug dhibka ka saarto, bixiso adeegyo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa siyaasiyiinta iyo dhammaan bulshada reer Galmudug xasuusiyay in guddiga ay kala shaqeeyaan fududeynta gudashada mas'uuliyadda ka saaran shirweynaha dib u heshiisiinta ee Galmudug. dowladda federaalku waxay idin siinaysaa wax walba caawinaad u baahan tihiin. waxaa laydinku kaalmeeyey wasaaradda arrimaha gudaha inay idinla joogto, idinla shaqayso. waxaan ku kaalmeynay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka amniga inay idinla joogaan, idinla shaqeeyaan. waxaan idinku kaalmeynay uguna baaqaynaa xildhibaanada iyo senatarada ka soo jeeda halkan oo shaqadooda ay tahay deegaanadooda inay nabadeeyaan, inay iyaguna qayb ka noqdaan shaqada aad haysaan. iyo qof walba oo danaynaysa in shaqadani ay miro dhal noqoto inay gacan idin siiso. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa muddo ku dhow bil waxa ay Galmudug u joogaan dhismaha dowlad goboleed sal adag leh kana shaqeysa danaha reer Galmudug, qaybna ka qaadato horumarka dalkeenu uu hiigsanayo. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Dhuusamareeb.